السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كلنتي وأنا ونكسر داوديان ما كسرنا نقل سعطان هالكني ومقبايسان حرونتي سويدن فلقيتها تطبيقات كنا وحنا كسر قاضينا عرورتا إيا والدين تا لكلا كحيو أو جارهان معلومات قدام بيسي آد لوجات لهي صحافة أدون كأوردن إيا سيبا وطن كسويدن لقاها لهي كل أرنتو هراء ويود عذي مقالوين فربضان إيا وطن كلا دون أي حقوق قد عذي هذا ما أنت وحيجو مرتيا halkan oo khadka zoomka ku jira hooyo Faadumo Ciise Yuusuf oo caruurteedii ka maqan yihiin sidoo kale waxay Stockholm khadka kaga jirtaa Hodan Toosh oo iyaduna shaqaysa degmada Stockholm arrimaha ku saabsan xeerarka caruurta sidoo kale muxaadarooyin ka jeedisa dadkana uga warbixisa qaabka loo maro marka caruurta la qaadanayo sidoo kale ka shaqaysa sida guriga loo heli caruurta familiyadooda laga qaado amba meel kale la dejinayo aad ayaan idinka mahadcelinayaa soo dhawaada marka ugu horeysa bal Faadumo Ciise Yuusuf aan ku bilaabo Faadumo wala soo dhawo muqbaya saan ku soo dhawo aad baan ku soo dhaweynaa kaaga mahadcelinaya waqtigaaga bal waxaad horta dadka aan maqal inkastoo dad fara badan ay YouTube dabcan ka arkeen oo warbixin badan bixisay bal dadka aan wali ku maqal aan baan wadanka joogin waxaan doonaynaa inaad siiso bal warbixin yar oo kugu saabsan goortaad wadanka timid iyo markii ugu horeysay ee dawladda Sweden kala soo xiriiray xagga caruurtaada ku soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم وكل وهاي وأنا كأجمع مهد علينا يا أديك يا بايا قد يقول جرتو يوم مدة الصومالية ذو يفيرسن دونتو ما شاء الله أنا قدرت كي لا صوت دهان كوجده وهاجا ما تنوشي كرتا مركا قلت مركي ووري سيد دولة سونات بكل صو حريداي عرضت هذا كسبسان لقول صو قاضي والله الحمد لله عرضت هذا حلاقة قاتي لبدي يكون iyo sagaal iyo tobankii bishii sagaalaad ayaa layga qaatay saddexdeeda wahagaag markaa ma lagu sheegay sababta oo kulli hore ugu dadkan ugu baan u jeedaa aan wali warkaaga haynin markii ugu horeysay ma horta imisa caruura ka maqan mar baa laga wada qaaday bal noo yar faafayalka bismillaah waxa alxamdulillah waxa iga maqan 7 caruur oo aniga dhalay يويل إلى رشته والعالكية توتني عرورتي جمع قواسيداد عرور إلهي ربي الرحمن كاي حافظة ما يلبي جوجان وحنا كبل لاوضي نبكو جورجيجا أيو كبل لاوضي وحنا قبل لاوضي جبارير أو عندلي أو مركز كو يتبنجر أهيد أو الماء لبي تبنك سنة واحد وقدي ما يهاي حبين قميصة أيو بربلين كو بلاوضي وحنا كو بلاوضي جبرداس iyo gabar saaxiibteed oo ii soo xareysay sawaxanka iyo buuqan iyo intaas oo sano ah ilmeyga la ahana alxamdulillah qadarteeda waxa lahayd gabadhaas iyo gabadha ii soo xareysay kadib markii ugu horeysay ma adigoon ugu mas'uulka laga qaatay mise guriga lagu yimid oo laga qaatay qaadashadii ugu horeysay ku dhacday habeen khamiis ayay dhacday waxay ku dhacday gabadha iyo gabadha isla yimaadeen كبعد مركي قلبتي سكول كمركي لا يصاب حسلا ما ذن أي سبب بحين هل صعي بر أو هبيني ما مركي تهاي أيا وحن كوري بريوا سكول سبتي معهن وإن أي قبض عم بحضو مركزي تروهايو ولا شيء لا بصوص عطوا ماذا حياة فونين ربع ما أي بحيسو تقول هايو هل صعي بر واي ماذا حنا اليوم فونين أيو معقول معهن وإن بحضو بري سكول أيضا لا هاي kolka otta waa la seexanaya sharcigeygana inaad jibiso ay isku dayin horeeyad banaanada ugu jibisay markaas ay ugu tiri ma dhaceyso saakuur way dhaceysaa ka bacdi waxaan aan af Swedish ku iri gabadhii kale oo ay saaxiibteed gabadhayda ahayd ayaan ku iri hebla go ud aan ku dhahay iga bax banaanka imoran waa school aan ku iri markaas ay tiri يا مركز يقول تري ما دعيسو ها وين دعده إلى أمريكيس أنا هو ما أنا درين قبل شكله أيان قلي أو مركز صدح كلا أو ير أيا شكله يقول سجيسة حين عشرة تايم كونها لبا كلا كسي ير أيا عشر سية عن سريري صوص صاري صدح داس أيا شكله كتيري مركز قبل يدوي بحذي قبل يكلينا بحذان موضوع يريد إسكافورتي قبل يدي هو عذي واحد السهام هو يدا way ku gumaysanaysaa nolol ma haysatay wax lamida deedna gabadhii waa israaceen wax dareena ilaahay baa igu ima galin jikada iska sii galay ilmiya casho iska sii siisanayay markaan kuwaas aan cashadii siiyay oo u soo fardhaqoon soo dhameeyay aan
Sihaam iyo Suraya soo baxa adinkana markaasay gabadhayda weyn curadda ay ugu tiri hooyo naagtaas waa baxday jeeriskeeda gashatay waxay tiri noloshaan ma rabo waa inaan nolol kale raadsado iriday ka baxday oo maxaa igu sheeg weys hooyo inaa bannaanka fadhidaa ku malaynaa maya jikadaan iskaga jiro jikadaa xirneed oo ilmaha kala casho siinaa marka sidaasay xaaladii ku dhacday kabacdi gabadhii maray 3 saac oo habeenimo tahay ayay booliisku ugu yeereen cabaar markaan jooga gabadhii waa raadiyey waa waayay xaafad iga xagayso Soomaalidan ku orday aduu 3 saac oo habeenimo la isoo wacay booliiska isoo waceen waxay dhaheen Sihaam waa haynaa ayadoo badbaado codsatay waxaan nagula sheekeeyay in la dilaayo oo in la dilay sidaasay booliiska gurigayga ku soo weerareen sidaasay booliiska gurigayga ku imaadeen caruurahaygii oo jiijiifay qaar soo kiciyeen ilmihii yaryaraa ku waaweynaana waaba soo jeedeen siday wax u jiraan ay u sheegeen kabacdi booliiskii waa ii dadaalay alxamdulillah wax qornaa ayaa dhacay waxay dhaheen Sihaamay laguma dilin ilmihii kalaan waraysanay hooyadaana waa maqanta aday ku raadinaysaa wax dhiba ma dhicin aabiyaana noo sheegay iyo ilmihii ee soo xaro maya tiri waxaan u baahanahay in nolol kale iyo guri kale aan helo halkan xuriyad kuma haysto waa hagaag intaas markii dhacday bal hodan aan kugu soo dhaweeyay adiga arrintaas waad maqlaysay wax u dhaceen caruurta marka ilmihii hadduu daayar yahay oo uu tabtaas oo kale wax ka xanaaqo saaxiibkii oo saaxiibadii oo gurigii la joogto loo diiday yani intee leeg baa caruurta la aamini karaa markay dowladda u yimaadaan ay dhahdaan dhibaatan haysataa runtii horta aad baan uga xumahay Faadumo qisadeeda iyo xanuunkay soo martay xanuunkay ku jirto kaligeedna maaha runtii faamiliyo badan baa ciyaal badan saa u galaafteen sheekooyinkan xataa beryahan imika 15 jiradii 17 jiradii iyagoo dee xorriyad qalad ka fahmay baa jira oo kuwii kale yaryaraa ee sabiga ahaa sii aafeynaya oo kaysaskaas imika soo badanaya xataa haddii aan jawaabta aan ka jawaabo su'aashaada runtii de horta ilmuhu markuu 12 jir yahay sharciyadii imika dambana waa kii ahaa mar walba ilmaha yar baa la qadarinaya wiilkooda de waxay ahayd waalidka iyo ilmaha in labadaba maxaa u fiican waalidkan iyo ilmahan bay ahayd sheekadu laakiin imika sharciga uu kasii adkaadayo waa kan laga dhigay in mar walba ilmaha yar la qadariyo marka haddii dee ilmaha yar 2 ama 3 isku hadal ay sheegaan waxaa laga yaabaa ilmaha qaar baa ku fiican beenta imika iyada waxaa laga yaabaa inay 3 kale 4 kale ay brainwashing ku samaysay tiraahdo ilaa jaanqaado dee ii raaciya marka hadday isku af sheegaan runtii ku qasban yihiin mar walba ilmi yaraa inay dhegaystaan oo muxuu hayto hadalkaa uu leeyahay ay dhegaystaan waxaana laga yaabaa inay wadaysteen cunugtaa yara daymika ajnabiga ee badda gelisay gabadha yar baa muxuu hayto sheekadan iyo historygan u dhistay waxaa laga yaabaa inay iyada reerkoogu markhaati u noqdeen oo dee maadaama balaayadan marka horeba iyada ka timiday oo gurigooga ay doonaysay inay ka saarto markii nooga bax gurigeyga la yidhi waxaa laga yaabaa faamiligaas ay markhaati u noqdeen oo been abuurii ay sameeyeen baa laga yaabaa inay yidhaaheen nolol kumay nooleynanta yariyo yacni marka way ku qasban yihiin inay dee jaarkii dhegaystaan iyo iyadii weli ilmihii hadday soo taagan tahay waxaan waxbaa ka jiro nolol ma haysti waa sax waan ku fahmay marka ilmihii uu saa yeelo marka waa tan degdeg baa ilmihii lagu qaadaya kadibna kule maxkamadda loo diraa marka waa tan maxkamad degdeg xeerka degdega lagu qaado marka waxaan la isweydiin karaa haddaba marka ay dowladdu ilmihii qaado ay maxkamadda ka warsugayso maxkamaddu ma baaritaan ma samaysaa mise way ku raacdaa degmada in carruurta degdeg loola boodo والله هو مر إمك بالمثل هدي شرعي ولا بكل دوين مدي واك emergency جا الممانتا دي سكول بالمثل أنت قا إلى جود جي واك بقنا يا وجود جي متجي كرو أو أما ولا يشرد لي شلا أما ولا يحوق كاسي emergency ويني دق كدي والد كي وعانا إلهان المية نقول نلتشوا وان ودنا كله إيا كان بارتان هوسي كاغا صعوتي لغو باريو أو لغو وضيو مركا كا emergency جا بالمثل محكمة الدريان المهير وانو قادناي مسحبانو كو قادناي كي قصب كأها وانو يعني بارتان با فرميو أو وضا هذا البا فرميو أو مركا حيكو حلان تلمد والبا مكي emergency جا هابا لغو قادي مسكي وضا شقين أها أي مد والبا كو حلانتي لكن مد والبا يكو قصبانتي إن محالة دها لغا فرو دعوة محكمة دا
badanaana maxkamaddu de waxay ku xidhantahay horta imka sharciyadii way sii adkaadeen oo cusurnimadii baa iska badatay waxay ku xidhantahay haan leegadaa xataa ku helaa oo muxuu hayto jaanis hadduu ku helo haan leegada cusuriyin gacanyaraha arrinta gacanta ku haya ujeedaa ha gacanyare ku haya runtii aad bay imka cusurnimadu usoo badanaysaa laakiin mar walba waxay ku qasban yihiin training inay sameeyaan kadib qodobaday ku qaadeen inay fiiriyaan ilmaha backgroundkiisii jaarkii soo wareystaan iskuulkii soo wareystaan familigii wareystaan dee wixii oo dhan la isku wadeegay marka maxkamaddu marmarka qaarkood go'aankay ama waxay social science ilaahaan waxaasaa ka jira marmarka qaarkood iyagu xataa way ka daba qaataan laakiin badanaa way isku daydaa inay maxkamaddu baaritaan weyn samayso oo training weyn la sameeyo intaan go'aan laga gaarin waay faadumaan ku sanado fadlan marka walaal ilmihii warisaa lagu qaaday saa ay hodantosh sheegayso aad maadartay maxkamadii baa kule loo gudbiyey arrintii loo gudbiyey maxaa lagu soo jeediyo marka halkee wax ka sii noqdeen marka maxaa halkii wax ka marka ilmihii side ma waxaan doonaya nolol adigina aad sidan sheegtay marka in la dhexdhexaadiyo ma la isku dayay bismillah waxaan rabaa baayahodan iyo dadka Soomaalida inaan u bayaaniyo ilaahay baa mahadda iska leh horta wax iskuul marqaatiya ma lahayo wax oo dariska marqaatiya ma leh still gabadhii ay tiri marqaatiya ii tahay isla iyadii ayaa tiri anigu dil ma arkeenin laakiinse hadalkaas maamada way tiri way ku qaylisay sax oo aniguna aan taaganahay waa sax waxaan waa dhaceen maba inkirin siday wax u dhaceen baa u sheegay isla sidii gabadhiina u sheegtay dariska ahayd waa run gabadheeda kabta waa loo sii tuuray haase ahaato waxay galaafatay cunugii ayada ka yara ayay marqaati ka dhigatay isla mar ahaantaana cunugii wuu isbedelay laakiinse un maxkamadii fadli rabbi saalim ayaa loogu marqaati noqday oo saas ayay maxkamadii socialku ugu ansixiyeen waa sax waxa marqaatina lama ansixiyo marka markii la ansixiyay maxkamadda gaarsiiyay labadii carruur ee walaalaha isku ansixiyeen saas maxkamadii markaasi ugu raacday degmadii iyo dawladdii inay saxayd in ilmaha la qaado absolute maxkamadii koowaad saas ay nagu dhaaftay saas ilmahaasi aan ku waayay sax kadibna kuwii dambe loo yimid baan u filayaa kuwii dambe maxaa sababay alxamdulillah maxkamadii labaad tagnay maxkamadii labaad markaa tagnay socialka waxyaalo been aad u tiro badan ayay soo qorteen oo kamid ah ilmo in la dhibaateeyay intaasoo sano la dhibaateynay anigoo gabadha yartaa dhalaayo gabadha ugu yar ilmaha ay qaateen anigoo dhalaayo oo isbitaal kula jira ku jirta taariikhda wax badan ilmihii qaar Soomaaliya jira ku jirtay oo markaas taariikhdaas Soomaaliya jireen adigu waxyaalo badan ayaa cadeynteeda keenay iskoolaadkii rectorkii ayaa ku jiray alxamdulillah intiba cadeynteedii waa keenay daagiskoo kale cadeynteeda ama xanaanada ilmaha kale cadeynteedii waa keenay maxkamadii labaad marka waxay door biday labada cunug oo waaweyn oo ayaga afkooda hadlayay oo la dhageystay inay dhaheen anaga waalidkeena ma dhibin ilmaha waxay sheegayaan allahenka alla waxaan u baahanaa waalidkeen marka maxkamadii labaad ma aysan ansixinin waxay ii ansixisay ilmaha waaweyn in la iigu furo wada shaqayn la iigu baaro lana ii soo celiyo sax marka waa lagu soo celiyey ma dhicin xaggooda iyo socialka maysa ka dhicin weli ilmihii cunug ayaa fakaday dhibaato badan maray 2 bilood duurka ku jiray siday Soomaali wada ogtahay gabadha weyna cabaadaysay YouTube-kay soo galeen ilaa hadda wax ka soo naasa cadaada male mar kasta oo hadal aan codsadana waxaa la igu xayiraayay oo la idhahayay waxaa tahay dambiilo kiiskaada booliiska ayaa faraha kula jiro mana ku tusayna ilmo xakun sugo ayaa tahay alxamdulillah xakunka wuu ii soo dhamaaday maxkamadii saddexaad iyo maxkamadii dambigaba boon soo faraha ama mas'uuliyadda waalidiinta nagalama qaadin oo maxkamadda noo soo ansixisay tii dambi baaristana 37 kiis hal kiis xatii waa nugula waayay oo ama haday dhakhtarka tahay cadeen ah iskoolaad haday tahay ilmaha jirkoodii wax ku yaal haday tahay alxamdulillah ilaahay ma hadale markii intaas oo dhan ay soo dhamaatay oo ay cunug yar oo dhalay oo aan ku dhalay Stockholm oo kala orday iiga kor qaadeen miiska korkiisa iigu kor imaadeen ayadoo dhowr 45 daqiiqo dhalan sida xasuustayda qabto yiraahdeen warqadan socialka waaye cunugtaana loo baahan yahay dhibaatadaas oo dhan ay mariyeen haddana alxamdulillah way sii laayiin ilmahayga wayna ila soo socodsiin laayiin wayna ila shaqayn laayiin
shan cunugaan dhalanay sanadkii saddexaada wax yar ka dhimaya bilooyin indha ma aana saarin aad baan walaal waxna wala dhacdo xanuun kul runtii aad baan uga xunnahay hodan toosh marka haddaan kugu soo noqdo haddii qofkii dembi lagu waayey oo dee aba baaritaan ba la sameeyo amba qofka wixii alaaliya wixii looga shakisnaa haddii lasoo maro ilmaha iyo waalidku xeerka xuquuqda carruurta miyuunu dhigayn marka waalidkiisii ugu yaraan la tuso amba ismaqlaan amba istuso amba go-aan dee markuu ay lasoo gaadhay soosyaalku amba amba dowladdu qaybta carruurta qaabilsan ma is hortaagi kartaa go-aanka maxkamadda horta taasi runtii maadaama laguguba waayey dembi umyangs maxaa la dhahaa inaad at least bishii hal mar ama 2 jeer la kulantid de taasi sharciguba wuu dhigayaa kol haddii lagugu waayey dembi midda labaad waxaan ku weydiinayaa faadumoy ilmahan yaree dambe markaad dhashay meel lagu geynin kamarad lagugu fiirinayo saad ilmahan dambe ula dhaqmaysid naaska u jaqsiinaysid cunto u siinaysid waayo haddii family laga qaato 4 ama 5 ka dambay dhalaan waxaa la dhahaa meel baan ku geynanaa magacii baa iga halowsane maxay hem utirednings hem guri baaritaan hawsha lagu hayo saad naaska u nuujinaysid cunto u siinaysid ma inta dhakhtarka lagugu yimid unbaa dhab lagaa siiyo lagaa waday exactly dhakhtarkaa la iigu yimid booliis la ii keensaday cunugteydii oo aanan u qabaynin oo dhiiggaan ku dhala leh baa layga watay marka wax garyaqaan oo kale miyaan haysan markaasi oo dadkan garyaqaaninta marka hawsha socotay miyaan haysan oo maan si la sii ogeyn in haddii tusaale ahaan markii aad walaal umushoo kale aad umuli doontid wax saansaana maad ogeyd oo ilmaha dhalanaya lagaa qaadanaya maad sii ogeyd maya guriyaaba kiraysanay guriyaaba diyaarsanay qolada oo shiishta kamoon waa ila soo xariireen si qurux badana iila dhaqmeen waxaa ku amray qoladan sanfikan kamoon oo dhaheen ka qaada ilmaha haddiinan qaadayn annagaa qaadanayno marka ma maxkamad soo marin maxaa yeelay ilmahan kuwan hore waad la dhaqanto gudubay kula deganaayeen okay haba la dhaho waaba dishay ama waad u hanjabtay laakiin ilmahani maadaama imikuun dhashay dee sharcigu wuxuu dhigayay runtii in utiradnisheem lagu geeyo oo saad ula dhaqmaysid hadday halkaa arkaan inaanad daryeelaynin markaas buu sharcigu ahaa in la dhufto laakiin kayskan waa wax lala yaabo kol haddii xataa lagugu waayey dembi oo ilmahan dambe aanad adduunku ku cusbaa u ahaa isagoo dhakhtar ku jira runtii waxaad xaq u leedahay maxkamadda ugu saraysa adduunka inaad ka dacwoto waraaqahaagoo dhan haddaad haysatid waa haystaa baahodan waana u socdaa midda kale ayaana kaa sheeka ilaabin waxay isoo baarteen 4 bilood oo dhalato dhamaato oo meesha daroogada meesha maskaxda 4 bilood oo dhalato dhamaato ayuu dhiigayga dhulka ku socday oon socday alxamdulilah 2 isbuuc ka bacdi cunugteedii la i tusay bil ka bacdi haddana la i tusay alxamdulilah xaalad qurux badan ayaan soo maray wax sharciya oo sharciga Sweden oo isneelka oo ka jiro oo la ila dhaqmay waan waayey ilaa abtinawdaana waala haddii aan ku weydiiyo faadmo walaal marka hawshaas oo aad maraysay dad xeerka yaqaana ma aragtay amba hadee Soomaali tusaale hadday yihiin oo Soomaali amba kaaga waroon amba dariiqa la marayo amba sida wax kuugu hagaagi karaan amba sida ugu yaraan dhibaatada dhacaysa loo yareyn karo ma heshay wax caawitaan xagga sharciyan waxaan haystay siyaasi Cabdirashiid oo shiishta u shaqeeya taynista oo dadka qolada ilmaha asagaba caawiya kamid ah imaam xuseen oo ii ah stoodkayga lawyer cusmaan lawyer kale oo gabadha yarta loo qabtay aniga dadaal oo dadkaas ama dadaal xaggayga ah hadday qarash tahay iyo haddii ay tahay dadaal dheeriya midna iguma harin laakiinse qadarta ilaahay baa ila hartay alxamdulilah waanun haddii ilaahay baa maqan wax walo la sameeyaba ilaahay baa intaa sabab cunugta yar uga soo dhigay cunugtaa kalena marka maalintu xagga mina allada ilaahay kasoo fasaxo unba wax waloo la sameeyo la carcararaba maalintaas unbay wax hagaagayaan waa runtahay tii ilaahay baa maqan waa hagaag marka hodanay imka dad waxa jira imka maalmahan oo dhan waxa socday aad baa xagga baraha bulshada looga hadlaya arrinta ku saabsan carruurta la guranayo la qaadanayo oo in badan yani lahaa sumcad darri usoo jiitay waddanka oo inay u badan tahay maadaama imka 2015 dad aad u fara badan waddanka yimaadeen oo dee magangelya doon oo kale dadkaasi inta tusaale ahaan degmada aad la shaqaysid Stockholm oo kale amba kuwa lamidkii
dadka cusub oo kale xataa waxaa laga yaabaa inay dhaqanadii isdiidaan waayo wadamada inaynu ka nimid iyo waddankan aad bay kula dhaqan duwan yihiin iyo haddii ay noqoto carruur iyo waalid iyo waxaasoo dhan ma helaan dadku markaa warbixino ay kaga hortegi karaan amba se ilmuhu ula dhaqmayaan dadka cusub oo kale tusaalahaan ma la siiyaa wallahi may horta taa kuma fiicno oo waxyaabaha imika profesoradii xataa jeekinada sameynta shalay report soo baxay waxaa la sheegayay dhalinyarada ku dhalatay waddankan laakiin waalidkooga ajanabi yihiin sida Faadumo aniga oo kale laakiin ciyaalkooga ku dhasheen halkan waxa u badan inka qasabka lagu wada qaaday sharciga qasabka marka lala barbar dhiga bay yiraahdeen profesoradii baaray familiyadan laga qaatay kuwa Swedishka taasay sabab u tahay familiga Swedishka dhaladkii haabay ilaahan caawitaanka waanu rabnaa marka la dhaho caawitaan baad u baahan tihiin ama waa la idin caawinayaa systemkoogina dee way fahansan yihiin halka dadka ajnabigiina sas ama buufisay ka qabaan haddii caawitaan la dhaho ha la idin caawiyo marka runta way ku liitaan waddanka dhan commuunka Sweden oo dhan baa horta wax information oo qofku markuu yimaado salaaduna waa halka iska xidhilaaday waddankeeni aad baynu kala duwanay labadan dhaqan dhaqankeeni waddankii wuxuu ahaa ilmaha yar cunto si oo qurxi uunoo iskuulka u diro haddana iskuulka marka loo diro macalimada weeye shaqadeedii laakiin halkan runtii aad bay uga duwan taho waa halkay labada dhaqan iska keeni laayihiin marka lamaba siiyaba horta information sida ciyaalka xaqooga iyo xaquuqdooda iyo maxaa la dili karaa iyo see loola hadli karaa maxay labada dhaqan ku kala duwan yihiin waxaan u malaynayaa waa la bedeli doonaa imka kol haddii waddankii dhan laga gilgilay oo ajnabigii soo badatay la qaadanayo way ku qasban yihiin information marka qofku yimaado in la siin doono muxuu inuu xaq kugu leeyahay maxaad xaq ku leedahay systemka waddanku muxuu yahay sharcigiisu marka ciyaalka tahay iyo marka ayna ahayn Faadimo waxaan kugu soo noqday marka adigu haddii imka dib waqtiga loo celin lahaa wax miyaad sixi lahayd mise maxaad isleedahay fikri nooceed ka haysatay intiin hawshan kugu bilaaban carruurta la qaato oo kale iyo maad isleedahay wallahi taasaan sixi lahaa haddii waqtiga dib loo celin lahaa amba taasaan wax ka bedeli lahaa amba maxaad ka baratay waxaan ka bartay alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin wax badan waxaan sixi lahaa haddii nolosha la isiin lahaa ilmuhu madaxa iiga socsocdeen inaanan dhibsan haddii noloshii la iigu celin lahaa wax noqonaysaan jirin waxaa ka marmarka qaar waxaan keligay qalbiga uga ooyo oo aan u iraado adi way kugu dhacday walaalaha u sheeg waxyaalo badan aan ka waaniyaa maadaama ani baraha bulshada aan awalba kasoo muuqday haddana aan bartayda youtube-ka aan dhex fadhiyo waa u sheegaa aad baan uga waaniyaa marka maanta waxaan sixi lahaa waa ka jirto siyaamay 50 naagoodna iisoo xaray 50 carab ma 50 ciyaalna iisoo xaree indhaha mar aan beelay inaan mar labaad beelayn wallahi waa because nuurkii dhanaa iga maqan alxamdulilah xaalad aan qiimeyn kara adduunka ku qiimeyn kara ma jirto marka waxaan dhihi lahaa hooyo igu kor socday ilaahay mar kale ha ii kiin soo celiyo insha allah ilaah ku soo celiyo marka soo noqonaya insha allah marka imka dadka kulli dad fara badan baa kula soo xiriira markaad youtube-ka kale aad ka hadlaysay dad fara badan baa kula soo xiriira waalidiinta marka waalidiinta Soomaalida haddii aanu gaar u eegno ma jiraan waalidiin fara badan oo tusaale ahaan dee warwarsan amba maxaa ugu badan su'aalaha lagu soo weydiiyaa maxay yihiin horta alxamdulilah dad badan ilaahay ama hadda iskale madaxayga ku toosay dad badanaa wax badan iskaga qaldanaaya indhaha kala furmay dad badan oo dayac badan oo aan u cabsado oo iraado haddii laga qaato qaabkay u noolaan lahaayeenba waa dhammaana aan yacni isbedelay dad badanna waa ila soo xiriireen dad badanna hormuud waa u ahay alxamdulilah wax badan oo aan ka bedelayna waxaa ka mid ah cunugaada waqti sii haddana dadka qaar ay aqli lahaayeen ay aaladda snapchatka igala socdeen oo ahayd hooyada keliya shanta intee kacdo shanta kale wax walba anoo dhammaystiraya nolosheeda dhan waxay ku jirtay aaladdan snapchatka marka dadkii amakaagay la noqotay Faaduma ilmihii laga qaataa dayac loogama qaadan waxay isku markhaati fureen inaan dayac la iiga qaadan exactly dayac la igama qaadin dhaqaale darro la igama qaadanin dhib ani ninkaygana dhex yaal la igama qaadan laakiinse afkaygii ayaa ilmahayga iga bixiyey qadar ilaahay ii qorayna ahayd ilaahay ku soo marka bal hodanay
see lagu hortegi karaa marka arrimaha kale imika aad buu soo badan in carruurta la qaadanaya marka ma cilmi darro waalidka ah mise waa isfahan la'aan dhaqanka haddaan taa kugu celiyo see lagu hortegi karaa arrintan oo kale yani carruurtan fara badan imika sii baxaya runtii labadaba way jirtaa ani imika kaysaskan imika arka waxaa ka mid a wiil 17 jir 16 jir wax loo diidaya kiibaa cararaya wuxuu odhanayaa gurigii nolol kuma haysano been abuur yani just because of PlayStation baa loo diiday kabo qaaliya loo diiday kuwii yaryaraa oon waxba aan lagu samaynin ayuu odhanayaa soo socda idinkuna kuwii buu dee brainwashing ku samaynayaa iyaguna waxaa laga yaabaa maalin wax yar loo diiday wixiibaa laysku been abuurayaa laysku markhaati furayaa dee markaana way ku qasbiineen ciyaalkii dhegaystaan marka runtii horta dhaqan isfahan laaba meeshan jira inagu markaan hadlayno runtii waynu iska kululnahay dad u dhashay baynu nahay kulaylka dad hadalla cadcad baynu nahay ciyaalkana hadday maanta kaa waayaan waxay rabaan dee way og yihiin halkay been abuur iyo balaayo ka samayn karaan sidaa gabadhaa yar ay ku tiri nolol kuma noolda iyada gurigooga way degantay waa because of iyadaa lagu yiri guriga nooga bax waana run xaq bay u leedahay waa gurigeedii waa inay seexdaan sharciga meel walba ka jira guri walba sharci baa ka jira leeltala iskuma kaa sheegto marka iyadna waxay ka faa'iidaysatay intii yarayd iyadna waa 12 jir aan aqli lahayn oo aqligeygii ku filnayn marka waa way isku maxaa la dhahaa waan arkay 17 jir 18 jir been sheegayo hadhow gurigii markay ka waayeen maxaa la dhahaa meelihii lagu hayay ka waayeen noloshii dharkii qaaligiina gurigeegiiba meeshan dhaafay igu celiya meeshan habeenkiina qasabna lagu seexinayo bawandaha 9 habeenimo meel walba sharcigaa ka jira marka ciyaalkeena qaarkeed way nagu kibreen markaad hoo wax walba tiraahdo Swedishka u fiirsada kabahay ciyaalkoogu xidhan yihiin dadkay xidhan yihiin wallaahi waad ka yaayaqsoonaysaa waa dad u soo dhididay shilinkooga oo ka odhanaya maalinta 18 gaadhi muxuu hayay laakiin ka Soomaaliga intaad isleedahay hoo wax walba hoo ayuu aakhira hadhow ku dilay maalinta tiraa waxa ma hayo ilaa way maad isku kibrisay kama hadlayaan Faadimo keyskeeda waa qadar Allah lama oran karo waa muxuu hayay ilmahayga isku kibrisay laakiin yani labadii dhaqan baan iskeenayn ilmaha kalkacalsi wuxuu xaq kaaga leeyahay laakiin adigana waa inuu ogaadaa wuxuu xaq iyo xaquu kaaga leeyahay waa sax marka waalidkii haddaba staan ilmihii looga qaadanin oo una uga taxadiro taana ilmihiina dee khasab waxa way jira wadanka kulli xeerkuna uu ogol yahay ilmihiina maya ku tiraado wax u diidi karto sidee la isku waafajin karaa marka labada inaad ilmihii waxna u diidi karto maya odhan kartid dee waa markaagina qaadan karo tusaale ahaan guriga yani waxa xeerku ogol yahay ba dee wadanku ogol yahay inaad xeer u samayso guriga ku tiraado ilmihiga waa inuu hore u soo ido waa inuu casharkiisii ka shaqeeyo waa inuu iskuulkiisii tago arday badan baa dhalinyaro carruur badan baa markay siiba 16 jir 14 jir gaarna madaxa la soo kacaan isbidayaa xoog iyo awood aad oo dhibtuna waxa weeye walaalo ilmuhu intaa midku leeyahay haddaanad ku bilaabin 3 sano 4 sano midku yahay inaad muxuu hayto sixnigiisa halkaa ka qaado xataa hadduuna kici karin intaad kursi u dhigtida tiraadid ku istaag oo muxuu hayto halkaa geli anaa dhaqaaye ilmahaasi strong buu noqonaya laakiin guryaheena ilmo 15 jira ayaa muxuu hayto sixnigii laga hor qaadaya cuntadii la hor dhigaya kabihii la hor dhigay ilmahaasi han kuma aldirig waa taxan for livid noloshiisa marnaba alxamdulillah oran maayo inaan ilowna maaha anagu xataa anagu 15 jir 16 jir baynu kulligeen ku wada shaqo galnay marka adigoo rafaadka ay silca ku soo koray inaad ilmihii cuntadii hor qaadid kabihii hor qaadid isagoo 15 jir 14 jir marka ilmaha marka laga bilaabo base-ka oo maanta aad tiraadid koobkii hooyo halka ka qaadana koobkaygu waaniga ka qaaday uu ku koraya guri structure routine ka jiro oo sharci iyo la kala dambaynayo laakiin 15 jir markuu gaaro kugu qaan gaaro isagoo saa u farada tira saasan ku toosinaya waxa la yiraahdaa hadii la iskaba leekaada lama kala weeyna marka halkaasay ka imanaysa Swedishka u fiirsada tareenka markuu ilmuhu saaran yahay ilmayana rafaadka iyo silca caatada aadiyaati ayaa dukaanka markay adeeganayso xoornaya nacnacaasan rabaa iska ooyaya iska barooranaya saynta u eegta ayaa labadeeda docood iska qaadanaysa way iska sii soconaysaa ilmaadi mama daahaya uu daba soconaya ka Soomaaliga maxaan sameeynaa ilaahay inkaad ku gudida qalad ilaahay ku gudida soo qaado nacnaca maalinta dambe muxuu sameeynaya dukaan markaad la aadid uu og yahay inuu meeshii daraabadii ka bilaabayo marka nolol been yani ayaan ku kodinaynaa dadkan way naga tagay iyagaba waa laga qaataa ciyaalka yaga naga badan laakiin waxay naga fiican yihiin wuxuu ku leeyahay man yo hoodi tagood me diira kleeder waxay isku badan ay isweydiiyaan ciyaalkan Soomaalida iPhone-nada iyo kabahan qaaliga halkii ka keenaa waxa laga yaabaa hooyo cayr qaadanaysa
iyadii waxa laga yaabaa in iska lex jeclaynayso in shay qurux badan gadato laakiin ciyaalkii bay u huraysaa amaah bay u galaysaa ayuuti u galaysaa waaba ilma meeqaad aragteen iyagoo hoodaa la hayo haddana bannaankaasi maanta duurkaa wada galay noloshu waxay u baahan tahay balance ilmihii kalkacalsi jacaylsi wuxuu xaqaaga leysi laakiin adigana adaa adduunka keeno ifkan keenay marka waa inaan ka bilownaa ilmuhu markuu babies uu yacni yar yahay waa inaan kasoo bilownaa bayska marka runtii dhaqankan saynu la jaan qaadno horta waa inaan barannaa oon systemka barannaa ilmaha yar wuxuu xaqiiga leeyahay waxaan xaq uga leeyahay muxuu dhigay isuudhka inta dhegtaa qabtaan bay yidhaahaan yo nifadu tolla on fadhonom inaanan lacag u haynin naagti baa fadhiisanaysa markaasnasa yood familiga economiga soo gala waa intan hooyadaa ka soo gala waa intan aabahana lacag laguma goyn karo maalinta dhalashadaada taa mistee 10 gaadhi safe garayso laba kadoon bay siinayaan meel yar ugu ridayaan maxay meesha yareeyde wuxuu sugayaa ilaa maalintaasi laakiin ka Soomaaliga heblaaye lacag ma haysa iga sii daymi bal in kaan ilaahay ku ridee kan ayaa maanta dhan taagan waxayna nagu kibrin baa markaa waa arrin adag weeyaan Fatima maqlisay maxaa kaga baxay taas abaayo waa fajinaya mise wax loo maxay ka socdaa abaayo waa runteed wax aniga been ah ma jecli dadka waxa ahay isku aad u jecel inay runta ka hadasho inta badan kalsooni ku qabta sax waaye anaaba dhahaba aniga gabadhayda waxay ahayd ilmaha sharciyan aan mar walba toosin jiray sawirro waxaa jiro ayadoo yariis ah maadaama ilmaha daagiska bilow daagiska waxay ciyaalka aad u jecel inay dheeshay perfectig u ahaan jirtay markay soo kacday waxay dhihi jirtay heble suraalada qaaqaawan ay qabaan oo aad u qaawan xilliga samarka la xirto iikeen markaasaa waxaa dhihi jiray heblo hooyadooda bisteemayse aniga bisteemahayga kan waayo aniga bisteemahayga waa noocaan marka run waayo cunuga haddaa saan u wadid saanu u soconaa laakiin haddaa saan u wadid falaaru noqonaa waxay iga faa'iidaysatay oo hooyooyinka Soomaaliyeed maalinta u sheegaa sihaan waxay ahayd inaad dhagta qabto maalinteeda ilaa ay maanta toosinayay saastay taa Soomaaliya soo geeyay 2 sano camal ay soo joogeen dhaqankii soo bartay ka soo heshay ayadoo malabsanayso rabtaan ka soo waday oon ka cabsaday dagaalada wax yar soo food saaray saasan centerka u soo dagay maadaama ilmihii weynaadeen kaar inay qaataan loogu talagalay soo marka run waaye anaka caabudkaan ugu badan hooyooyinka ilaahay beer ha siiyo ay ku hadlaan ay dhahaan gurigaan maxaa ka jiro laakiinse guriga wax badan oo qalada aa dhex yaala soshaalka wax badan oo qalada markayna soo dhex galaan wax badan oo qalada ay nagu arkayaan waxaa ka mid ah biilkii oo dhan in qaarkood haaf la diro ayuuta haaf la dhiibo deen wax badan masaasuq xumaan ku dhaqmoonaa sharciga waddanka ma ku dhaqano marka soshaalka dayna soo dhex galaan directive ama runtayna tusayaan ama waxbay naga qaadanayaan wallaahi runta cunugii qalloocnaa marka hooyada isku toosan oo aan ceyr qaadan ama isku toosan oo ayada ninkeeda isfahansan hadduu cunug kaa qalloocan yaa jiro anigaa meel cidla fadhiyo qaba soshaalka u geey xaqa u leedahay inaad tidhaahdid cunugan wuu amrooyaa iga qabso intaasaan qaataa intaasoo cunuga haystaa dhaqaaleyga ugu yar qaxooti ahay waad mahadsantay taasaa naga dhiman marka silicaas dulmigaas baanu ku noolaanaynaa ilmaha yar nagu haynayo marka aad baad u mahadsantay waa taata naga dhiman dadkani kibir ma ogola noloshay bal kabaha iyagu xidhan yihiin dadka xidhan yihiin idinku fiiriya jeans buu nin wal oo Swedish ama gabadh wal oo Swedish 3 bilood ay xidhan tahay lacag la'aan ma hayso laakiin vacation bay u safe garaysanayaan kibir ma ogola annagina anagoo muslim oo islaam sheeganayna wuxuu baan kala qarqarinayna alamayne ilmihiina wuu ogyahay wuu kugu huutaynaya marka adigoo waxbaba samayno dulmi ku nool waxaad kala qarinaysaa isaga socialki laakiin amaliyada u geeyeen dhegta qabtaan muxuu tii hooyo maalinaan la hadlayay baa runtii waxay tiri qalad baan ka aaminsanaa laakiin casharadaadi markaan ka arkay social science ilmihii yaraa waxay tii 14 jir 2 sano ay dhibayay bay tiri taanu qaaday bay tiri boodsidiisa hooyadii shopping degan baan ku dhaybay tiri idinka mas'uulkaas oo maaha ma hayn karaya ilmahan yar maalin walba lacag qaaliya kaba qaaliyo laba iskuulkiina wuu joojiyo ma aado assalaama ayay igu yimaadeen bay tiri bariyo naga hay ilmi waxay tiri marka saas uu noqday
waxaan ku dhaw waa adiga message inaad sii gudbitid imika qof wal oo Soomaaliya hooyo wal oo saa u dhibaataysan waa inaad tiraha ka baqanina social science inaga inoo fadhiya waad mahadsantahay hodan waad aad baad mahadsantahay faritaas way kaa geysan tahay waa hagaag haddaba walaal Faadimo waxaan doonaa ku weydiiyo marka haddaba halkee imika xaaladii ku maraysaa walaahi waxay maray khayr waayo waa iska aamusana iyaguna waa iska aamusan yihiin waa hagaag marka goormaad rajaynaysaa inaad soo kala dhamaataan ilaahay xaggiisa ii taala wax iyo qofka markuu rabo inuu ku wanaajiyo ama uu rabo qof bini aadana ilaahay un baan qaldaminay hadday qalad igu arkeen xatii qof bini aadana inay saxaan ay la shaqeeyaan hadday rabaan waa ila shaqayn karaan laakiin mar walba waxay iga hor keenayaan cilad baad leedahay ciladina inaan iga caawinin marka cilada ku haysta ma u sheegto ma ka dalbatay inay kaa caawiyaan iyaga absolute taas alxamdulillah meel kasta afkayga ku sheegta caawina u baahanaa iyo caawiya aniga dhaqanka iyo kaljarkiina ma aqaani laba dhaqanaa kala leenahay please iyo caawiya marka wali wax caawina maysan ii filin waa hagaag marka wax kulay hooyooyin kale ma xidhmad la leedahay maamba urur ma samaysateen hooyooyin fara badan oo kale ayaa tabtaadaas oo kale de kulay dhiban hadday noqoto Scandinavianka iyo Sweden ba hooyooyinka ma isku xidhan tihiin haddaba ka tirsan maamba Soomaalidaadan amba dadka ka yimid meelaha ka baxsan midowga Yurub inaan qaarkaan iswacno isla ooynahaa laakiin hadda ayaa rabaa urur aan saxiixay baa jira oo soo bandhigaya Sweden qolo walba leh Swedish leh Arab leh Eritrea leh isku jiro ay dariiqo oo ilmahana aan ku soo cesho karno oo caalamka maxkamadaha caalamka ku tagi karno inaan ku furana rabnaa haddaan wadadaas qaadnay marka hodan adiga haddii aan ku weydiiyo way imka muddada mise way sii kordhaysay carruurta la qaadanayo sidee loo arkaa imka waxaad ka hadlaysay warbixin soo baxday oo ahayd in inta badan carruurta khasabka lagu qaatay ay ajaanib ku badan yihiin marka maxaad is leedahay sidee loogu yarayn karaa mise way sii soconaysaa runtii allahu aclam de ilaahay baa og inay sii wuxuu ilaahay qoray qofna u qoray ma seegayo ama sharci aad aqoontida ma wax kale aad ha ahaatee laakiin yani waxyaabaha sii kordhinaya waxaa ka mid ah imika bilmatal hooyooyin xanuunka dhimirka qaba baa jira oo keligood nool kaysaska imika xataa ugu dambeeya social science kusoo badanaya hooyadii baa bilmatalan la odhanaya maadaama 6 ciyaal ama 5 ciyaal aad leedahay assistant guriga ku yimaado dawooyinkaaga qaadaha lagu guriga ku dhaqo cuntada ku koriyo iskuulka ku wada diraan may barab iyo sifaadu ma sheegayse may waan istabarayaa hooyadii taagantay Soomaaliyeed uma baahni hadda sharciga wuxuu dhigayaa hooyadii markuu xanuunkii ay diido dawadii inay qaadato kaas aanay imika badan dawadii bay diidayaan badanka inay qaataan waalidkeedii waxaana keenaysa jaahilnimada waayo maanta ani cudurkan qaba xanuunkan qaba cidna ma ogaan aniga ahayn cid ma ogaan karto marka bilmatalan markii dawooyinkii diiday inay qaadato de xanuunku ku sii bato ilaa dhakhtarkii baa documentationka dawooyinka qaadato gelinaya ciyaalkii waxa laga yaabaa iyadoo sii kala jeedeen iskuulkii loo diro iyagoo muxuu intay iska rafaadsan halkaasa fashta uurusan meelan ka imanaysaa waxa la odhanayaa waanu kuu soo bandhignay waa diideen aan ku caawino ciyaalkan ma hayn kartid we must on placera them meel kale inaan geyno ha ciyaalkan foster care family waa inaan u geynaa kadib buu qofkii hooyadii Soomaaliyeed koodonsa imikan dawooyinkii bilaabaya waqtina way qaadanaysaa shalay waa lagula bariyay intaasoo sano xeeriya fandhaal markay kala dhacnay ta ugu daran waxa weeye aabooyinkii waa meeshii ka maqan aabi haddii la siin lahaa way kala tageen ama afku ku maqan yahay ama guri ma haysto ama wax systemku casaankaga jira marka runtii yani waxa jira waxa la yiri moosku guriga intuuna ku soo gaadhin haddaanad iska yani ilaahay maskaxdiisa siiyay maanta aniga hadlaya caawa markaan ka baxo meesha ma ogeyn xanuun ugu soo boodi doono marka qofkii Swedishkii waxaan ku leeyahay way ka faa'iideysanayaan 3 bilood 5 bilood kadib waxay taagantay waan istabeli karaa ciyaalkaygu ma baahniyo inaad caawisaan socialkiina waxay u safe garaynaysaa lacagtii ku bixilaydan subax walba ciyaalka loo yimaado yadna halkaas ay dawooyinkeedu ku qaadanaysaa marka runtii waxaana dhibay anaga waxa weeye meel walba sayfaadu ma sheegaysa mayaan la soo dhixgelin
balaaya noo sawirmaysa yani haddaabad ogtay marka horeba inay dhibi ku haysato gurigaagaad isleeda waa lagu fiirfiirinaya dhib baa lagaa helaya ka hor inaan saxno adduunka waa la ogyahay hooyo keligeed 7 ciyaal inayna kodin kariya 5 ciyaala waa hagaag adaa ku haysta haddana waxaan kala ku weydiin lahaa carruurta maadaama guri Soomaaliya ama Muslim laga qaadayo kulley waad kala shaqaysaa xagga degmada carruurta meesha la geenayo ma isleedahay faamiliyo badan oo Soomaaliya u diyaarsan inay carruur qaabilaan tusaalahan xaafadooda laga soo kaxeeyay amba sidee jibigu waalidku mu dooran karaa se ilmaha halka la geenayo maadaama dhaqan iyo diin iyo ilmuhu ka imanayo horta kayskay ku xidhan tahay kayska yani laakiin badanaa marka ugu horeysa ilmaha yar meel la geynayo waxaa la eegaa faamiligan yaa ku xeeran networkigiisu siduu yahay ma qaraabaa jirta ahaa halka idan degan adresskaasi suu yahay oo iyadoo waatu muxuu haytoy wadanka ka cas ama guduud kaga jirta ama maxaa la dhahaa booliiska ku jirta waxa adu networkigaasay eegayaan marka qaarkood faamiliyadiiba xataa against isku mudduci ah idadiiba halkan ka soo haadaysa waxa laga yaabaa social science habadirtii ha u geynin annaga noo geey socialka maxay sameynayaan markaa dag ciyaalka inta laga dhex qaado in meel kale oo mad kale ah in la geeyo marka runtii annagii baan is arki karayninba oo waana ayaan daro dhibta maanta haddaad idowta ama habadii ciyaalka u tay dee waxayna waa inaad halkaasi ka bahalaysa marka mad walba waxay isku dayayaan horta inay faamiliga ku xeeran haddii iskumana qornin badankeena to be honest meeqa maanta meydkoogii la siin kari waaye dad walaala ah dhibtana haysata waxa weeye systemkii bayna xataa isku qornay markaan waxaan kula talin lahaa horta qof wala Soomaaliya maanta Faadumo tii ku dhacday 100 inaga mid ay nagu dhici doontaa waxaan dadka moodaya inay Faadumo kaliya dhibtana haysato wallahi alcadiim 2022 baa la maraya 3 sano ka hor baan sheegay inuu hadalkaasi inay soo badan doonto xataa waxa la bilaabay ciyaalka baahiyaha gaarka ah in la qaato maxaa yeelay waalidkii marka lagu iraaho ilmahaagu baahi gaar u leeyahay aan ka caawino iskuulkii special schoolage ما فصلكها كنت حلو ما فصلكها دحيالو يعني وحيابها سوي ضدكن إننا وحبا إنه أهين مركا هداد مودي سان فادومو إني مانتي كلية دبتنا كود عضي كون صومالية كسوس عطا دي مانتا لبراري وايو نولشين إنينا براري ويني مانتا كيسكا آين فادومو كود عي بقول إننا مدو كسوس عطا ما صدتها warbixintaasi fiican family inta fusterkeed family ah because waa ina registerkii laga eega de annagii baaba 7 ku degan marka adigiyo barakaysan oo 10 ciyaal haysta ilmo kale seerad ku qaabilaysa marka waxaan kula talin lahaa dadka keligoodan ciyaal kale aan lahayn aan haysan qof walba degmadu degan yahay interest aan meelan buu ka sameyn karaa diinta dooran kartaa ilmaha lagu keenayo dhaqankiisa dooran kartaa culturekiisa dooran kartaa age-ka dooran kartaa yani waxaas oo dhan baa dooran kartaa hooyo aan waxaan soo taagnaa Soomaaliyeed intaan ugu maqnaashinteeda ciyaal family Soomaaliya intay soo wacdantay markii daba ku tiri gabadhi gacan yarihii ma rabi Soomaaliyeed loo geeyo maxaa keenay waxa keenay bay tiri hadhow bay soo raadin doonaan oo oran doonaan heblaayo ciyaalkeedii baa laga qaatayo waa basariyo waa sidan because dad waxaan nahay muslimka afka uun ka sheegta laakiin aan ku dhaqmin oo amarka ilaahay qof wuxuu ku keenay beritoole ku caayay hooyadaas waxay ka doonbiday family Swedish inaan u raadino u geeyo baqasho ay ka qabto Soomaalideeda la dhalatay ما صدتها فاضل ما سامين ما تكوي شيء كأريتها ما سكر حاجة زي هذا الشيء يسو واحد سامين ما تكوي أريتها عروض ريرها لوجينيو ميرها لجينيو هسه شيء شاليد صوماليا جرو كله ما حريرة ما يكون سمينا ما ضل شاليد الصومالي ده وكله بسم الله هذا كان كرقادة يا أنا كنصيب نصيب وناك بندي كرا نصيب حما ما دي كري الحمد لله نصيب وواي إلهينا إيما قدرين كمون أنيغا ilmaha iga qaatay baaba kamoon iska daa Soomaaliin oo igu geeyay anigii dhalay itusila intaana waa u ooynay waana ka daba ordayay wiilka soo fakado 2 bilood banaanka jiray af cad oo banaankiis isku geeyay oo xoogiisa Soomaali ku doortay ilaa haddana waa la ii diiday in la iigu geeyay ilmaha kale 6 kale Soomaali marka anu Soomaali kama ordeen mana ka ordeen la dhahay waxa ka qurux badan cunuga maskaxiyan loo dilaa inaad daawayso سوون كو فهمي waxaa jirta waa sabab soo gabagabadii ku soo socnaa waxaa jira mudaharaad doonaysan inaad qabataan maalinta Axadda
16 bisha ayaan rajaynaya haddaanan khaldanayn magaalada Gothenburg muxuu idin kusoo kordhinaya mudaharaadkaas waa maxay hadafkiisu wax badan uu noo soo kordhiyey wax badan uuna na caawinaa wax badan uuna aniga Faadimo i caawinaa mudaharaadkaas waxaa ku jiro waxaan ka helay dad badan oo ilmaha laga qaatay ajaanib ah oo ayu nooca Swedish iskugu jiro ajaanibta kale iskugu jiro Soomaali wali ma ka arkin waa sida abay u wax sheegayso waa isqarqarinoona waa dhadhabacnaa qaarkoodna waxbaa lagu hayaa oo ma sheeganayaan dhibka lagu hayo marka aniga waxaan ka helay dadkan aan ku dhex orday ururkan oo iskugu jiro qof walba oo ilmaha laga xoogay oo ilmahooda si xaq daro loo haysto insha Allah bandhig fiican aan soo bandhigi doonaa mudaharaadkana waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha liisoo istaago walaalaha hurdo aan hurdada ka kicino see u wax sheegayso walaalay macaanay gurigaada ka bilow cunuga ku xoogooyo xaaladda amar la'aanta kugu wado adigaba xaqaa u leedahay socialka u tag maalin walba isna YouTube-ka ka dhaca u tag socialka lagaama xigeen waa hay'ad ku shaqaysay صح على خاص ugu dambeyntii adna hadana maxaad kula talinayd waalidiinta aan systemka si fiican u socon tusaalahaan aba isweydiinaya talow ilmaha goormaadina lagu soo socdaa isle maxaad kula talinayd midhiya laba eray runtii waxaan kula talin lahaa say Faaduma sheegtay dulmiga haddii ilmahaagu kugu hayo uu kugu kibray uu waxaanad goyn karin ama uuna ku maqlaynin ilmahan 18 jir intuu ka yar yahay adiga ayaa ka mas'uul ah intay goor tahay orod uge oo ilmahan yar bal fahansiya waxaan xaq uga leeyahay waxa xaqiiga leeyahay iyo waxaan u gadi kara iyo waxaan u goyn karin marka maanta aan ku tusaale qaadano maanta dad ismoodaysaan idinka ku yineena loo soo socon waxa la yiri leeltalo iskuma ka sheegto meel aan ka filanaynin ay ciyaalkiinu idinka dhex toosi doonaan waxaan adduunka kala naga reebay oo ummadda kale kaga duwanayna dad isku xidhan ma nihin dad runta isku sheega ma nihin dad buufis kala qabaanu nahay waanu qarsanaynaa waxa yagii marka saas baa systemkiina noogu dul soconaya maadaama communities ku xidhan aynaan ahayn dad sharciga si fiican u garanayn aynaan ahayn dadkooga aynay is arki karayn aynaan ahayn ciyaalkiina ay nagu kibireen marka inta goortay maanta 2022 baa la marayaa wax badan bay Faaduma Buraanbur soo silicday soo qayliday oo soo hadashay maanta hadaad idinku moodaysaan inaynu waxba idinku dhici doonin nafsigu waa balaayo qof walba gudigiisa ka bilaabo ilmihiisa yar ha ka warhaya hala sheekaysto waqti ha geliyo Soomaaliya waxa ka dhacaya iyo Soomaaliland iyo Puntland waxa iska ilooba meeshan hadda wadamadeenii noo fiicnaayeen meeshan maynaan iman lahayn to be honest runtan la isku sheegaa fiican meeshan baa laynagu duugi doonaa qaarkeen badan waa laynagu duugay COVID-19 waad aragteen meeshan inaynu qalbiga iyo niyadda u sii dayno dhul walba ilaahay baa leh marka halkan aan ka bilowno nolosheena ciyaalkeeni baa ku dhashay waa lagu duugi doonaa qaar badan baa lagu duugay way ku guursan doonaan annagaana lagu aasi doonaa marka inta goorta qalbiga iyo niyadda aan wadankan dhex galno diinteena iyo dhaqankeena inagu haysana Faadumana Buraanburna maray ciyaalkeega soo noqdaanba way soo noqonayaan si ay ku soo noqdaanba tii ilaahay baan weli xagga ilaahay baan laga soo daynin Faaduma ciyaalkeeda way soo noqon doonaan insha Allah ugu dambeyntii nafad maxaad faraysaa waalidiinta iyo hooyooyinka arrintaas oo kale la dhiban ugu dambeyntii ما شاء الله تبارك الله وحاومة الصوماليات مرة والبوشة يجري أيان عاون وشيء بليز أم بليز سوشيالك وهاية دولة كصاد البطي هوستكتو أديك يكون شقيسة ولا لا يعنق هذا كدرمين هايا أما دولمي هدي أذن رالك أهين تك سو توسي عنق جي انتو كو بيركدن كتير لا أو مال علق صوب ريسين لا بليز عنقان قبل جي كو أنا قاعدة ضدك كاوري aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad baan idinka mahadcelinaya intaad naga soo qayb gashay muuqaayasaan u idin mahadcelinayaa hodan cumar oo Stockholm ka jirtay iyo waliba Faadumo ciise Faadumo Buraanbur aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya intaad nagala soo qayb gasheen intaasaynu kusoo gogoynaa falaqayntii toddobaadkan waanigoo Jamaalkaas oo idinla socodsiinaya intii igala qayb gashay aad baan ugu mahadcelinayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo